waxaan u mahad celinayaa guddigii qabanqaabada ee xafladan qiimaha badan soo qabanqaabiyay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxda nagu sharaftay inaan mar labaad aan xilkaani ku soo laabanno oo ugu horeeyo wasiirkii arrimaha gudaha oo asigu soo qoray recommendationka Ustaad Axmed Macalin Fiqi wasiirka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo igu aaminay mar labaad inaan xilkan qabto iyo ra'iisul wasaaraha Ustaad Xamza Cabdi Barre dhammaantood iyo cid kasta oo gacan ka geysataba waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waan uga mahad celinayaa sidaas la mid ah waxaan u mahad celinayaa shacabkii Soomaaliyeed ee walaalaha ahaa ee qalbiga furan ku soo dhaweeyay magacaabistayda ayagana waa u mahad celinayaa sidaas la mid ah waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo si diiran oo niyad sami ah u soo dhaweeyay magacaabistayda qalbi furan ugu soo dhaweeyay inta kadib mahad celinta kadib gudoomiye Cumar anigu waxaan nahay dad yaraantii soo wada koray meel ku soo wada koray iskuulkii Allaahida ayaan wada dhiga jirnay mararka qaarkood intaan Madiina ka soo lugayno ayaan luku imaa jirnay madaxtooyada agteedu ku yiila markaas ayaan luku imaa jirnay mararka qaarkood xaafad ayaan wada deganaynay wax badan ayaanan na soo dhex maray marka waxaan aad iyo aad niyad samidiisa iyo qalbi furaantiisa waa nimaan ku yaqiinay haddana waxaan noo cadaynaysay hawshii halkan lagu soo bandhigay inta uu joogay waxqabadkiisii iyo dadaalka uu sameeyay waxaan leenahay wuu ku mahadsan yahay gudoomiyuhu asiga iyo intii la shaqaysaba wuu ku mahadsan yahay leeyahay far kaligeed fool ma dhaqdaa la yiri far kaligeed wax ma qaban karto runtii iguma cusba sida la sheegay maamulkan horaanu soo maray dadka joogana intii iga dambaysay iyo intii iga horeysay intii aan la soo shaqeeyaba waa dadaan asxaab wada ahaynay oo runtii aad iyo aad kalsooni buuxda aan ku qabo inay ila wada shaqay doonaan haddii Ilaahay yiraahdo sidaas ayaana ku niyadsamahay haddii Allah awood la ogolaado inta kadib waxaan ahay sida uu ka dhawaajiyay gudoomiyuhu baabuurka darawalkiisii aan ahay baabuurkuna hadduu bacaad galo darawalku suuragal maahan inuu baabuurkana riixo baabuurkana wada suuragal maahan marka waxaan rabaa dadkii riixi lahay inaad idinku noqotiin annaan steerinka idin haayo hadduu bacaad galana aan wada riixno haddii wax naga qalloocdaan aan isu sheegno si aan isu toosino taladiina kama dhamin iyo toosintiina taasna waxaad ogaatiin waa mid aan mar walba aan ku soo toosi doono kuna shaqay doono haddii Ilaahay yiraahdo waa runtii waa la daahay waa la cabaaray waxaan u baahannahay dalkayna iyo dadkayna waxay ku jiraan xaalad abaareed xaalad duruufaysan ay ku jiraan Ilaahay waxaan uga baryaynaa in abaarta uu naga saaro annaguna aan naqano kuwa gacmaha isqabsado dadkaynana aan u gurmano haddii Ilaahay yiraahdo
ama ha noqdaana dadkii ku soo barakacay magaaladan muqdisho ee runtii soo maciin biday inay dadkooda dhibaataysan halkan dadka joogo inay ehel iyo arxanba ay ka helaan taasna waxaan rajaynaynaa inaan ka dhabay doonno haddii Ilaahay yiraahdo soo sidaas maaha taasna waa arrin noo taallo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa saraakiisha hay'adaha amniga oo xaaladda amni oo aan ku jirno oo lagama maarmaan tahay in la isgarabsado haddii aysan bulshadu isgarabsan gacmana aysan isqabsanin iyaduna amni imaan maayo amnigu wuxuu ka dambeeyaa ummad wada heelan una wada heelan inay iyadu amnigeeda sugtaan taasna waxaan haddii Ilaahay yiraahdo aan anigu dadka u horeeya naqad doonaa inaan la shaqay doono hay'adaha amniga sida aan uga gudbi lahaynay dhibaatada amni darrada ayna haysato oo labada dhinac naga soo wajahday hadday ahaa laheeday kuwa arxan laabayaasha ah ee argagixisada ah iyo kuwa kale ee bariyan magacyada kala duwan la baxay oo weerar iyo magacyo samaystay haddii Ilaahay yiraahdo waa dul istaagaynaa xoogaynaana isugu gey doona haddii Ilaahay yiraahdo inaan dadkayna iyo dalkaynaba aan ka kor yeelno insha Allah inta kadib waa mahadsantiin waxaan rabaa Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu hadda koor waxaa dhacday asigoo guuraynaya habeenkii ayaa wuxuu soo maray reer caruurtooda ay ooynayaan oo qaajo darteed ay ooynayaan markuu gurigii ku leexday ayaa wuxuu weydiiyey hooyadii maxay caruurtu la ooynayaan markaasay tiray waxay la ooynayaan gaajo ayay kala seexalayihiin markaasuu radebaaba kuu shidana ma dabkan wuxuu saartid markaasay tiri dabka waan ku maaweelinayaa laakiin waxaan saaramahayo marka gaajay la ooynayaan maysan ogeyn inuu amiirul muuminiinka asiga yahay Umar bin Khattab dib u laabtay wuu baxay habeenkii saq dambe aheeday wuxuu tagay baytul maalkii wuxuu ka soo qaaday raashin uu ka soo qaaday raashinkii markuu soo qaadayay ayaa ninkii baytul maalka dadkii joogay waxay yiraahdeen yaa amiirul muuminiin anaga xamaalayno qaadayna adiga iska dhig markaasuu idinka ma dambigiiga qaadaysiin uu yiri ana qaadayo geynayo yiri markuu geeyay hooyadii uu kiciyay dabkii uu shiday ciyaalkii markaasaa dabkii ayuu saaray asigoo babinayo ayaa qaaci ka baxaya garka ka galayay markaasaa Cabdiraxmaan bin Awf oo la socdaa wuxuu yiri yaa amiirul muuminiin saacadan baan joognaa qabow baan ugu dhaco waayo raashika oo keenay ayaga karsanayna keen markaasuu ayagoo ooynayaan u imiday ayagoo qoslayaan ka tagaya markaasuu ilaa ay raashikii ka cunaan ay ka qoslaan oo dul taagnaay mas'uuliyadu waa taas mas'uuliyadu waa midaas mas'uuliyadu ma aan mid lagu xarakoodo mas'uuliyadu ma aan mid lagu bool xafteeyo mas'uuliyadu ma aan mid caada lagu fuulo mas'uuliyadu waa waxa lagu weydiinayo birita maalinta qiyaamadana lagu weydiinayo cirkuna diiday dhulkana diiday bini aadamkuna qaaday marka mas'uuliyadaasi yaraana malaha weynina malaha cid kasto dadkan mas'uul loo saaray waa khaadim inuu u khidmeeyo u shaqeeyo raba laakiin uu ka shaqeysto lama rabo marka aan dadka u shaqeynayaan ka shaqeysanin taasna meel la qoro waxaan rabaa marka halkayga deelqaafkayga inaan ku soo qatimo shirifka waxaan rabaa marka bulsha isbiirsaatoon isbaqna goyni wow bukna bulsha isbiirsaatoon isbaqna goyni wow bukna waa bulsha isbiirsato wada shaqeynayso gadaal feelaha iska jaraynin hadii Ilaahay yiraahdo hore isla soconayso marka waxaan u fasiro waaya ra'iisul wasaaraha u fasiraya
maadaama isleeyahay shirabku aad iyo aad xoogaa marka soo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaad waan idin mahad celinayaa waqtiga aadna siiseen inta aadna sugayseen dibdhaca nagu dhacaya daaha nagu dhacayna waa ka cudur daaranaynaa duqa magaaladaasaa nooga cudur daaray wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulamadeennana way badnaan doonaan haddii ilaa yidhaahdo marka insha allah soo dhow